asalaamu calaykum. muuqaalkan maanta waxaynu ku eegaynaa odhahyo ay ka tageen dadiyow adduunka soo maray oo magac ku lahaa iyo kuwa hadda jooga ayaynu soo qaadan doonaa muuqaalkeennan. aan ku bilaabo Canadian writer qoraa u dhashay waddanka Canada oo laga hayo odhaahdan Robin Sharma waxa uuna leeyahay good health caafimaadka wanaagsani is like waa sidii crown dash daadkaasiyoo the healthy wear caafimaadka qaba ay uu sito but the only sick keliya tag xanuunka hayaay kan sii u arki karayo. raabar u dhashay waddanka Maraykanka oo la odhan jiray Tupac Shakur waxa uuna leeyahay don't sit at the table ha fadhiisanin miis where halkaasiyoo they talk about others ay kaga hadlaan dadka kale because maxaa yeelay when you get up marka aad kacdo you will be waxaad noqon doontaa next topic mawduuca xige laga hadli doono ayaad noqon doontaa. Aristotle mufakir weyn filosofer u dhashay waddanka Giriiga oo wax badan kusoo kordhiyay cilmiga biologiga iyo physics-ka waxa uuna leeyahay there is the only way waxaa jirta waddo keliyata to avoid aad kaga fogaan karto criticism dhaleecaymaha lagu soo jeedinayo waxaana weeye do nothing inaad waxba qaban and say nothing waxnana odhan and be nothing waxbaba aanad noqonna taas ayuunbaad kaga fogaan kartaa dhaleecaymaha lagu soo jeedinayo. Ratan Tata philanthropy samafale hore u dhashay waddanka India waxa uuna leeyahay none can destroy waxna ma burburin karaan iron xadiidka but it is rusty laakiin taxalkeeda uun iyadu markay xumaato uun ayuunbay isjebin kartaa. Likewise sidaas si la mida none can destroy a person waxna ma burburin karaan qof but his own mind laakiin maskaxdiisa uun. taasiyoo xigmadda ku jirtaa ay tahay dadku keliya meesha ku kala duwan yihiin inay tahay qaab fakarkooda qofka kale wuxuu kaga duwan yahay mentalitiga. sarkaal u dhashay koonfurta Kuuriya ayaa wuxuuna leeyahay pain xanuunku is the best instructor waa macalinka ugu wanaagsan xanuunku but laakiin no one wants cidina ma doonayso to go to his class inuu galaaskiisa tago. Denzel Washington jilaa filin sameeye u dhashay waddanka Maraykanka ayaa waxaa laga hayaa odhaahdan waxayna leeyahay without commitment ka go'naanshiya la'aan haddii aanu kaa soo goyn waxaasu you will never start weligaa ma bilaabaysid. but more importantly intaa waxaase kasii muhiimsan without consistency haddii aanad joogtayn shaygaa aad bilowday haddii aanad joogtayn you will never finish weligaa ma dhammaynaysid. Joseph Johann qoraa u dhashay waddanka Maraykanka waxa uuna leeyahay the cave you fear to enter godka aad ka cabsoonaysa inaad gashay holdis wuxuu hayaabaa the treasure farxadda you seek aad raadinayso. dulucdeeda waxaa laga wadaa waxaa weeye inaad cabsida wajahdo si aad u gaadho horumar. xigmad kalena waa tii ahayd to see the beauty on other side si aad u aragto quruxda saydhka kale amase dhinaca kala taalla you gotta get through your fear waa inaad ka gudubtaa cabsidaada. filosofer iyo qoraa hore oo u dhashay waddanka China waxa uu ina leeyahay true wisdom xigmadda dhabtahay does not come from kama timaado reading 1000 books akhrinta kumanaan buug but laakiin by traveling u safarka 1000 miles kumanaan mayl inaad u safarto ayay ka timaadaa xigmadda dhabtahi. xigmaddii Soomaaliga ahaydna waa tii ahayd ninaan dul marin dhaayala. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan nagula hadlaynaa wuxuuna leeyahay siiru fil ardi. xigmaddana waxayna leedahay half of your beauty qayb ka mida quruxdaadu comes from waxay ka timi the way you speak qaabkaad u hadasho ayay ka timi qayb quruxdaada ka mid ahi. Rumi gabyaa hore u dhashay waddanka Afghanistan oo noolaa qarnigii 13aad waxa uu ina leeyahay beautiful days maalimaha quruxda badani do not come to you kuma imanayaan you must waajib waxa ah buu leeyahay
walk toward them inaad xaggooda u dhugayso, xaggooda inaad u dhaqaaqdo ayaa waajiba. taasioo dulucda ku jirta ay tahay in farxadda, happiness, success, guusha aan lagu siin ee ay tahay inaad adigu abuurato. mar kale wuxuu ina leeyahay if you want haddaad doonayso to destroy inaad jebiso any nation qaranka aad doontaba without war adigoo aan dagaal la gelinba mike ka dhig adultery sinada and nudity iyo qaawanaanta common wax guud oo iska caadiya ka dhig in the young generation jiilka u soo kacaya ummadda. labadaa shay uun waxaad uga dhigtaa wax caadiya. waana laba shay oo innaga ka Soomaali ahaan waqtiyadii u dambeeyey aad mooddo inay oodaha soo jabsanayaan, xarkaha soo goosanayaan. muuqaalkeennii maanta halkaas ayuu inoogu egyahay. Assalaamu calaykum.